salaadina waynu tukano dad islaam aynu nahay adduunyada ilaahay wuxuu inoo keenay inaynu maaragtay aakhiro ugu shaqaysano adduunyada nolol wanaagsan ku noolaano haddii aynu wixii laynoo keenay fahamno maanta halkan xidiga waaweyn baynu wada xidhanay shaqaynu diyaaruna haddii shaqada aynu gees marro waxaynu ku dhacaynaa khaladaad ama cid baa inala xisaabtamaysa kale sidaasoo kale haddii wixii adduunyada lagu keenay aad khaladidna lagula xisaabtamaya من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بالهيج قفك عمل وناكس السماية إيمانا لجهله من يقبل كودونها هذا فلنحيينه حياة طيبة من وناكس ما نوري سيريا نرشى ما تعيروا ذديدين قبل نلون وناكس بدوني قبل وناكس بدوني قروح بدن خالي وبركة يسنو dhagannugul buu doonayaa caafimaad buu doonayaa madaxnimo iyo sharaf buu doonayaa abni buu doonayaa ma koobi karo qof waliba wuxuu doonayo nolol wanaagsan buu rabaa taa ilaahay baa mid ka sii wanaagsan sheego aanad garan karin falanuxiyinnahu xayaatan dayibatan bilhayr labadaas shardina waa in iimaanna laga helo camal wanaagsan aad samayso waa labadaasoo ilaahayna waa saadiq ilaahayna waa run sheege dunidana isaga abuurtay cid ku haysataana ma jirto yaa marka si aynu nolosha wanaagsan helo Soomaalidu ama bini'aadmigu wuxuu u yaqaanaa inay diintu ka tarto oo qura inay aakhiro qura wax ka tarto salaadu ama diintu laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay falanuxiyinnahu xayaatan daybatan ay kulli adduunyadii walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yacmaluun aakhirana ilaahay wuxuu jannaan gelinaya haddaba maadaama adduunyadana nolol wanaagsan aynu doonayno aakhirana janno doonayno waxa lagama maarmaana hadalka aad u dhageysta waxa lagama maarmaana inuu qofku ilaahay ka baqo waxaan imika anigu ka doonayo ee aniga leega sii doonayo ee adigu qaar aad xukunta ka sii doonayso waa inuu daacad noqdo oo qaranka daacad noqdo waa inuu shaqada si wanaagsan uga adkaado waa inuu run ka sheego adigana run ku sheego waa inuu qaranka daacad noqdo madaxda daacad noqdo wadanka daacad noqdo bulshada daacad noqdo naftiisa daacad ka noqdo weeyaan taas waxay imanaysaa qofku markuu ilaahay ka baqdo qalbigiisa ay cabsi ku jirto ayuu intaas oo dhan ka sheegay haddii kale qofku waa qof miliqsanaya oo wuxuu cunun doonaya oo dawaqsan taa horta Allah inagu anfaca dhamaanteed halkan maanta waxaynu isugu nimid taliya qaybeedyadii gobolada dhan baa jooga ninka ceer gaaban looga yeedho ama laascaanood looga yeedho ciyaar ma ninka boorama looga yeedho ciyaar ma lixda gobol ee waaweyn qaybihii taliya qaybeedyadii qolo walba waxa ka jooga 5 nin taliyihii qaybta taliyihii CID-da taliyihii laanta wardoonka taliyihii saldhiga dhexe iyo madaxii baadhiste ama qaybta ama saldhiga dhexe jooga ciyaar maaha waa mishiinkii dhaqaajinaya qaybta weey ma aha uu inta gawadhi soo raacdan hargeysa iska timaadeen waxa loo mishiinka meesha dhaqaajinayay unitka waxa loogu yeedhay 3 cisho dhinacna waa wax ka kooban iska turxaaji mobilka dhinacna waa wax ka kooban oo 3 cisho ka kooban dhinacna 3 cisho hadaa soo jeed samaysaan waa cilmi weyn oo idin anfacaya ayaa qaadanaysa koow horta maxaa waa maxay muxuu ciwaan ku saabsan yahay ninka cade halka fadhiya oo boob la yiraahdo ingiriisa iyo qolada kale halka fadhida inkastoo khalad ku jiraan qolada saraakiisha dhamaanay soo labistaan bay hayeen booliska weeyaan oo lama ogola maalmaha dambeena qof aan labisnayn oo boolis inuu halkan soo fadhiisto rag iyo dumar weyn soo labistaan iyo ninka cad ayaa dhigayo ninkaasana ee macallinka koobaadsiya oo waa maxay xigmadu qodob koobaad waxa weeye sideeba malta ajis sideebay u wada shaqeynayaan waxyaabahan kala kaankaanka ee ciidanka booliska dhexdiisa ila qaybo kala wada kaanayno haw imika CID-du gaar bay u shaqeysaa wardoonku gaar buu shaqeynaya booliskii kale gaar buu shaqeynaya sideeba malta agency-gu ay u wada shaqeynayaan collaboration for job sideeba loo sameeyay oo shaqadu ku hagaagayso oo sirtii oo dhan nin walba sir buu hayaa nin walba shaqo hayaa nin walba warbixin buu hayaa waxa sidii loo kulmin lahaa loo wada shaqeyn lahaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad sida maaragtay terrorismka looga hortago iyaduna waa talabaad sideeba crime scene-ka goobta dambigu ka dhaco sideeba markiiba loo maareynaya dambigii loo baaraya hawshii wax looga qabanaya ila waxa in badan laga ordaayo inuu nidhaahna had iyo jeer waxaan nidhaahna
arrinta inoogu daranay in haysataana ay tahay kiisku baadhaha saldhigga ayuu ama ka toosaya ama ka qaloocanaya haddaynu dhammaanteen qodobkaa fahamno baadhuhuna wuu is ilaalinayaa taliyaha saldhigguna baadhaa wuu ku sii ilaalinayaa taliyaha qaybtuna 24 saac wuu dul taagnaanayaa halkaa foojignaan dheeraada inuu wada qaadan haddaynu fahamno kiisku hadduu baadhaha ka qalloocdo madaxweynuhu ma toosin karayo sababtoo ah kiis la soo diyaariyey oo la soo dhisay oo cadayma la soo raaciyey oo la isku soo dubakilay heede ma toosin karayo cidi ma toosin karayso haddaan marka hore la toosin marka si aanay taas u dhicin taana meesha insha Allah waa lagu baran doonaa waxyaalo muhiim idiin ah xigmadeenna weynina waxa weeyaan shaqadeenu marba marka dambaysa upgrade inaynu sii samayno oo updating aynu samayno aqoon badan oo boolisiina uu jirtaa way idinka buuxdaa laakiin xusuus in upgrade la sameeyo oo wixii aynu kolba update samayno seminaar koobano imika 7 cisho waa laga dhigi karaa laakiin 3 cisho waxa looga dhigay maadaama taliye qaybta sanaag iyo kii laascaanood iyo kii burco iyo kii wixiiba wada fadhiyaan ayaa 3 cisho wax ka badan meynaan ka soo maqnaan karin shaqadii saasa loo soo gaabiyay laakiin waa 3 cisho xigmad weyn xambaarsan laba qodob markaa iga dardaarana haddaynu maanta halkan fadhino fursad baan ka faa'iideysanayaa dhinacna dardaaranka ah dhinacna amarka ah waxaan doonayaa inaynu dhammaanteen awoodda isugu geyno saldhigyada dhammaanteen awoodda aynu isugu geyno saldhigyada taliye qaybeed oo midkaa fahan bulshada halka isku keen xidhaa waa saldhigga bulshada halka isku keen xidhaa waa CID-da bulshada halka isku keen xidhaa waa traafiga laandheeraha iyo aabbaha meeshuna waa saldhigga ee ugu muhiimsan saldhigga dhiban oo dhan baa maalintii imanaya haddaynu saldhigga awoodda saaro oo relationshipka dadweynaha inoo dhaxeeya hagaajino oo qofka dhibanaa aynu akhlaaq ku soo dhaweyno oo baahidiisina aynu ka jawaabnayno degdeg markiiba uga jawaabno kiiskiisana cadaalad ugu baadhno qofka maxbuuska aynu haynana si wanaagsan u qabanno oo akhlaaqaysan oo meel nadiif aynu ku xidhno oo ehelkiisa aynu tusno oo hadduu xanuunsado dhakhtar geyno oo aynu xaaladiisa ka warhayno oo dadku waa qof dhibana ah iyo qof maxbuusa weeye fiir ninka halkaa bannaankaas ka jooga fiir baa ku jira bini'aadamka human being waxa la yidhaahdo qofka dareen baa ku jira hadday bilaaya ku qofka kastoo bini'aadmiya xaguu ku cararaya saldhigga qalbigiisa ku xidhan hadduu saldhiggiiba aanu hagaagsanayn oo ilaa waa meeshuu bini'aadmiga kala kulmaye dee muxuu qofku markaa bilaayada i gaadhsiin oonaya isagoo dhibaataysan marka qodobka aan doonaya dardaaranka weyniga had iyo jeer qodobka waa ku celceliya booliskeenna waxaad moodaa inuu kor u kacay laakiin waynu ka dhutinaynaa saldhigyada inaynu runta isu sheegno weeye saldhigyada dib baynu ugu noqonaynaa baadhista dib waana baadhayaasha baadhahana taliyaha saldhiggaa xukuma taliyaha saldhiggana taliyaha qaybtaa xukuma taliya qaybtu yuu habeenkii seexanin ilaa uu ogaado maaragtay ilaa uu ogaado uu registerkaa eego waxa u xidhan iyo mid waliba wuxuu ku xidhan yahay subaxdiina waa inuu eegaa saldhigyadiisa waxa xalay soo kordhay maxaabiista waa inuu ka warhayaa saldhigga waa inuu kormeeraa isku soo duuduub xigmaddan ka wadaa waxa weeyaan dadka aynu u shaqaynayno waa inaynu isbeddel weyn ay xidhiidhkeena iyo wada shaqaynteena ka muuqata midda labaad kiiska baadhistiisana waa inay cadaalad weyna ka muuqata taasaan anigu idinku dardaaraya taweyna oo maaragtay dardaaran halka ay xadantaynaysa weeye bulshooyinka hadduu boolisku wanaagsanaado cidda isku xidha connectionka dawladda iyo bulshada qarankaasu leeyahay waa booliska hadduu booliskana saldhigyadaas ku sii xidha dadka saldhigyadana baadhayaasha ka sii wakiila hadday kuwaas wanaagsanaadaan dawladda bulshadaasu dawladdaa way ammaanaysaa dawladdaasuna way wanaagsanaanaysaa hadday kuwaasu xumaadaan dawladdaasu dawlad xun bay noqonaysaa marka inagu yaynaan sabab u noqon inaynu dawladdeennana xumayno dadkeennana aynu dhibno inagoo aan ogeynay hawlayna haysato oo mushaharkeennu yar yahay oo hawl badan aynu ku taagannahay oo dadkeennu maaragtay camal badan laayahay oo karaymku inagu badan yahay aan ogahay la dadaalo haddana waxaan doonaya inaynu awoodda isugu geyno saldhigga gaarna waynu sii wada hadli doonaa taas waa dardaaran kale 3 cisho halkan waxa aynu baranayno ee dhallinyarada iyo ninkaas inoo diyaariyeen ee maaragtay faa'iidada weyn leh waa inaynu u dhega nuglaano aad u weerayno qorro hadhowtana aynu gudbinno insha Allah